halkan waa tilmaantii akhriyada qadarida qaybaha mudan nagala socotiin oo soo gudbinayna wararkii ugu dambeeyay haday tahay kugu horeysay bogan fadlan subscribe ku samee YouTube channel-kanaga sidoo la socoto wararka warbixinada waraysiga haddaad mar hore ku sameysana mahadsanid wararka tilmaantii galabta waxaad ku maqli doontiin koronyo baabuur oo uu la socday madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh oo la rasaaseeyay taliyaha guud ee ciidanka asluubta oo si kul uga hadlay shaqaqadii dhexmartay ciidanka asluubta iyo ilaalada Xasan Sheekh diyaaradaha Kenya oo duqeymo culus ka geystay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Gedo boqortooyada Ingiriiska oo list cusub ku dartay wadamada ay ka mid yihiin Masar iyo wadamo kaleeto inayna soo gali karin dalka Ingiriiska dowladda Soomaaliya oo war ka soo saartay falkii lagu rasaasay kolonyada Xasan Sheekh ciidamo commandosa oo lagu soo tababaray dalka Turkiga oo soo gaaray magaalada Muqdisho qaramada midoobay Soomaaliya oo bisha September lumid doonta xuquuqda codbixinta golaha guud ee qaramada midoobay intaas waa warka madaxdiisa haddana warka tilmaan TV oo fidsan koronyo baabuur oo la socday madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay lagu rasaasay isgoys soo markaas madaxweynaha uu socday shir ay lahaayeen midowga musharaxiinta wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha ilaaladiisu ay xabad ka jawaabeen oo ay xabad ku soo fureen markii la xabadeeyay wararka ayaa sheegaya in baabuur ilaalada kamid ah oo la socday madaxweynaha uu xoog ku dhaafay barta controlka kadibna ay ku rideen xabado iyaguna ay soo rideen xabado halkaasi wax khasaare ah kama dhalan sida wararku sheegayaan taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya Generaal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa ugu baaqay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu raali gelin ka bixiyo shaqaaqa shalay dhexmartay ilaaladiisa iyo ciidanka asluubta ee ilaalada xabsiga xamar taliyaha ciidanka asluubta ayaa ku eedeeyay ciidanka ilaalada madaxweynaha hore Xasan Sheekh Maxamuud inay si xoog ah uga gudbeen bar control oo ay ciidanka asluubta ku sugnaayeen taasoo markii dambe sababtay isku dhac labada ciidan gaari Cabdibilaa ayaa xoog ku gudbay gaarigii labaad ayaa celiyay si aan u hubino cidda uu wato waxaana kadib dhacday in gaarigii horeeto uu dib u soo jeesto oo na soo xabadeeyo meesha camera ayaa ku xidhnay dadkii oo dhan ayaa arkayay waxa meesha ka dhacay waana wax cad oo aan u baahnayn baaritaan ayuu yiri taliyaha asluubta taliyaha ciidanka asluubta ayaa nasiib darro weyn ku tilmaamay in dad badan oo madax ah ay garan waayaan qadarinta askariga amniga sugaya ee u taagan difaaca qaranka iyo ka ilaalinaya cadawga inay u soo gudbiyaan xafiisyada dowladda haddii ilaaladiisa inoo sheegi lahaayeen inay wadaan madaxweyne Xasan Sheekh waan soo dhaweyn lahayn waana u furi lahayn dariiqa laakiin waxaa nasiib darro ah in nala ku xushmeyn waayo shaqadeena oo madaxweynihii dalka soo hogaaminayay uu garan waayay waxa aan meesha aan u joogno inay tahay inaan iyaga ka ilaalino cadawga ugu soo gudbaya ayuu yiri taliyamaha ugu dambeyn taliyamaha ayaa ka soo horjeestay in dambiile lagu tilmaamo askartii uu sheegay inay iska caabiyeen xabadii lagu soo riday wuxuuna sheegay inay gaf weyn tahay in askartii waajibaadkooda gudanayay lagu tilmaamo dambiilayaal wararka naga soo gaaray gobolka Gedo ayaa sheegay in halkaasi ay duqeymo xoogan ka geysteen diyaaradaha dagaalka dowladda Kenya xalay saqdi dhexe diyaaradaha Kenya ayaa duqeyn dhowr deegaan oo ku yaala gobolka Gedo oo ay ku nool yihiin dad u badan xoolo dhaqato deegaanada duqeymaha ku geysteen diyaaradaha Kenya waxaa ka mid ah Wargaduudo Qulqul Shabaal Wargaduudo Qulqul Shabaal Balambal Mudaale Ceel Cadde la helay Daarusalaam Buusaar iyo Caws Guran oo dhamaantood ka tirsan gobolka Gedo inta la xaqiijiyay waxaa duqeymahaasi ku dhintay hooyo iyo wiilkeedii taasi oo la sheegay in lagu magacaabi jiray Sahro Aadan Warsame waxaana sidoo kale ku dhaawacmay 6 ruux oo kale oo la sheegay inay u badan yihiin caruur deegaanada ay duqeynta ka geysteen ayaa laga soo sheegayaa inay saaka isgaarsiinta hawada ka maqan tahay waxaana la sheegayaa in khasaaruhu intaasi ka sii badan karo wararka ugu dambeeya ayaa saaka laga helayo gobolka Gedo ayaa sheegaya in wali deegaanada qaar laga maqlayo duqeymaha diyaaradaha Kenya ma jirto wax war ah oo wali ka soo baxay saraakiisha dowladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo ee ku aadan duqeymaha diyaaradaha Kenya ka geysteen xalay iyo saaka deegaano badan oo ka tirsan gobolka Gedo maahan markii ugu horeysay ciidamada cirka ee dalka Kenya ay weeraraan Soomaaliya dhinaca Jubaland gobolka Gedo iyagoo markaasi sabab uga dhigaya inay la dagaalamayaan ama duqeynayaan argagixisada Al-Shabaab oo halkaasi ka howlgala xukuumadda Soomaaliya ayaa ka hadashay rasaas shalay lagu furay kolonyo gaadiid oo uu la socday madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in guddi ay u saareen soo baarista dhacdadii shalay lagu rasaaseeyay Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka ayaa intaas ku daray in cadaaladda la horkeeni doono cid walba oo ku lug lahayd dhacdadii shalay lagu rasaasay gaadiidka galbinay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud
ciidanka asluubta ayaa dhowr jeer oo hore bartooda kontaroolka ku rasaasay gaadiid ay saaran yihiin mas-uuliyiin iyo oday dhaqameedyo taasoo noqotay mid soo laalaabatay. dhinaca kale taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo ka hadlay dhacdadii galabta Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay ahayd mid aanan ku talagal ahayn oo si kama ah ku dhacday, isla markaasina sheegay in ka raali gelinayo arrintaas madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud. weli ma jirto wax war oo ka soo baxay dhanka Xasan Sheekh oo ku aadan falkii shalay ay ku rasaasayeen ciidanka asluubta Soomaaliyeed kolonyadii galbinaysay. ciidamo kumaandoosa oo lagu soo tababaray dalka Turkiga ayaa maanta dib ugu soo noqday magaalada Muqdisho. waxay u muuqataa in farmaajo uu soo aruursanayo ciidamo dheeraad ah halka ciidamadii badbaado qaran laga saaray magaalada Muqdisho. arrintan ayaa waxay dhalisay shaki badan ciidamada faraha badan ee lagu soo tababaray dalka Turkiga ee dib loogu soo celinayay Muqdisho laga leeyahay arrimo siyaasadeed oo la rabo in lagu caburiyo doorashooyinka iyo midowga musharaxiinta. Soomaaliya iyo dalal badan oo ku yaala Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa lumin kara xuquuqdooda codbixinta golaha guud qaramada midoobay sida lagu sheegay warqad la faafiyay Arbacadii shalay ahayd. dalalkan ayaa lagu leeyahay xuquuqda miisaaniyadda howlgalka ee qaramada midoobay oo gaaraysa malaayiin dollar. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa warqad u diray madaxweynaha golaha guud Volkan Bozkir ku sheegay in 3 wadan oo Afrikaan ah oo ay ka mid tahay Soomaaliya. 3 wadan Afrikaanka ah ayaa weli ka codayn karin falka fadhiga socda. 3 wadan ayaa ilaa ay hadda loo ogol yahay inay codayaan ilaa ay kal fadhiga hadda socda ee ku eg September. axdiga qaramada midoobay ee ay ku midaysan yihiin 193 wadan ayaa dhigaya in xubnaha deyntoodu ka badnaato xaddiga tabarucaadkooda ay luminayaan xuquuqdooda codbixinta. sida ku xusan warqadda xogayaha guud, lacagta Soomaaliya lagu leeyahay si loogu soo celiyo xuquuqda codbixinta waa 1 milyan iyo badh lacag ku dhow oo dollar. bishii September ee sanadkan haddii dalalkan ay isbixin deynta lagu leeyahay waxay lumin doonaan xuquuqda codbixinta ee qaramada midoobay. dalal u badan qaaradda Afrika iyo Aasiya oo lagu daray liiska casaanka ee wadanka United Kingdom boqortooyada Ingiriiska. dalalka Afghanistan, Bahrain, Costa Rica, Masar, Sri Lanka, Sudan, Trinidad and Tobago ayaa lagu dari doonaa dalalka dadka ka imaanaya ay liiska cas red list gelisay boqortooyada Ingiriiska. isbedelkan ayaa dhaqan gelaya 8 bisha June 4 subaxnimo oo ah maalinta Talaadada soo socota. dadka ka yimaada dalalkan marka ay xuduudda boqortooyada Ingiriiska soo galaan waxaa la geyn doonaa hoteelo ay dowladdu qorshaysay halkaas oo ay ku geli doonaan karantiin si looga hortago faafidda cudurka COVID-19. dadka ka soo jeeda dalalkan ee haysta baasaboorka Britain oo kaliya ayaa loo ogol yahay inay tagaan wadanka Ingiriiska, kuwaasoo gelaya karantiinka iyagoo dadka caadiga ah ee dalalkan u dhashay ay mamnuuc ka tahay inay Britain galaan. hoteelka oo uu qofku ku jiri doono 10 maalmood kharashka ku baxaya oo u dhaxeeya marka loo bedelo dollar ay tahay $1,400 ilaa $2,380 waxaana iska bixinaya qofka la karantiilayo. dhinaca kale Britain ayaa dalka Portugal mar kale ku celisay liiska ambarka ee halistiisu yar tahay sababo la xiriira dalxiisayaasha reer Britain oo sanadkan aadaya xeebaha Portugal. Soomaaliya, Ethiopia, Cumaan, Kenya, Pakistan, Bangladesh, Philippines, Qatar iyo dalal kale ayaa hore loogu daray liiska casaanka ee wadanka Ingiriiska. waxay u muuqataa in wadanka Ingiriisku uu arrintan ka sameynaya lacag maadaama wadamada Afrika iyo Middle East lagu daray listiga. ilaa ay hadda wadan ka soo jeeda Europe oo lagu daray listigaasi ma jiro. haddii aynu tusaale soo qaadano wadanka Faransiiska oo cudurka coronavirusku aad ugu badan yahay ilaa iyo 35,000 laga helo week kasta ayaan lagu darin liiska reerka ah ee la soo geli karin. waxaa kaloo cudurka coronavirus uu ku badan yahay wadanka Mareykanka ilaa iyo hadda wadanka Mareykanka laguma darin liiska reerka ah. waxay u muuqataa wadanka Ingiriisku inuu isticmaalaya siyaasad qalafsan oo looga soo horjeedo wadamada Afrikaanka ah iyo wadamada Asia. halka warka kala socodsiga warbaahinta Tilmaan TV hadda tan ku wareysay boggan fadlan subscribe ku samee YouTube channel-ka si aad ula socoto wararka warbixinada waraysiga aan qabanno week kasta. ha kala baqayn inaad siiso Tilmaan TV subscribe Tilmaan TV YouTube si aad ula socoto wararka